safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa ka qayb galay munaasabadda xadhigga jarka warshad biyaha badda ka safaynaysa biyahaasi macaan oo loogu talagalay in ay ka cabaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Djibouti waxaana warshadani biyaha macaan badda ka safaynaysa xadhigga ka jaray madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Danjire Cabdifataax Siciid Axmed ayaa ka mid ahaa danjirayaashii lagu soo casuumay ee goobjoog u ahaa munaasabadaasi xadhigga jarka warshadda biyaha macaan badda ka safaynaysa ee ay ka cabbi doonaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Djibouti. Munaasabadani ayaa sidoo kale waxaa joogay xubno ka mid ah golaha xukuumadda marwada koowaad ee dalka Djibouti Marwo Khadre Maxamuud Xayd. warshadani ayaa soo saari doonta maalintii 45,000 oo mitir kuub oo biyaha macaan ay ka safaynayso badda waxaana warshadani biyaha macaan badda ka soo saaraysa maalgeliyay midowga Yurub. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.